بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal caawa waxaa ka hadlaa saddexda mawduuc wax yar waan ku fogaan doonaa laakiin waa mawduucyo aad u muhiim ah oo mawduucyo hadduu qofka ku riyoodo hataa shaki iyo cabsi iyo welwel iyo cuqdad iyo mashaakil ku sababi karo. sidaa darteed waxaa wanaagsan mawduucan saddexda mawduuc in aad loo kala qaado micnahoodii waxay tilmaamayaan in la ogaado si qofkaas oo xaalimka ah aan dhibaato uga soo gaarin. mawduuca koowaad waxaa weeye adigoo uur leh ilmo xaaraan ah, ilmo aan xalaal ahayn adoo caloosha ku wada badanaa gabdhaha weli guursiina oo badan. mawduuca labaad waxaa weeye haddaad ku riyootid gabadha ninkaaga qabi, tan hadda lagula qabo maaha, iidan waa kasoo hadli doonaa gabadh laakiin ninkaa kala tageen oo kale. mawduuc kale waxaa weeye kufsi, inkastoo aan jecleen arrimaha inaan ka hadlo hore noogu soo hadlay haddana waa lama horaan. nin kufsi geysanay intaas su-aalan waa la isoo su-aalay, marka insha allah waxaan ku horeyn doonaay uurka adoo ilmo xaaraan caloosha ku sida gabadhaa weli la guursanin. inta badan mufasiriinta riyooyinka qof walba ra'yi gooni oo kaleeyahay arrintaa. qaar waxay ku leeyihin gabadhan oo la guursanin hadday ku riyooto iyadoo ilmo xaaraan caloosha ku wada waa riyo fiican, li'aan waxay ku leeyihin waaqaca iyo riyada isku mid maahan. waaqaca waa wax gacantaada ku jiro laakiin riyada maa wax gacantaada ku jiro. inta badan baad aragtay riyooyinka marka la fasirayo waxyaabo qaar oo caadi ahaan xaaraama aa riyada dhexdeeda caadi ka tahay, yacni fasirkeedana ay wanaagsan tahay. marka sidaa darteed mufasiriinta qaar waxay dhahayaan gabadhan oo la guursanin hadday ku riyooto iyadoo ilmo xaaraana caloosha ku sido yacni dhibaatooyin maaha, khaasatan wiilkay markaa xiriirka ka dhexeeya hadday ku riyooto iyadoo asiga uur u leedahay waxay leeyihin waa faraj, waa kurbo rabbi kaa qaadaay, waa maxayd guuleysi, waa haddii matalan aan dhahe shaqooyin waxaa ku jirtana tijaaro iyo maxay ahayd faa'iidooyin. marka aan kala qaadno mufasiriinta qaar waxay leeyihin ma fiicno, sida waaqaca ay u xun tahay ayay riyadan ugu xun tahay. maxayd gabadha iyadoo ilmo xaaraan uur leh caadi ahaana qofka markuu ku riyoodo riyada ma jeclaysanayo, sida caadi ahaanta loo nacaayo iyadoo soo jeedka looga nacaayo ee hadda riyada qofka hadduu ku arka riyadan jeclaysanayni. gabadha la guursanin hadday ku riyooto iyadoo uur leh ilmo xaaraana uurkooda leedahay waxay tilmaamaysaa leeyihin mufasiriinta qaar deeman hadday caadi ahaan gabadhaas tahay deeman badan lagu haysto yani dhibaataysan tahay. waxay kaloo tilmaamaysaa dhahan mushkilad nafsiyan ay haysata dhibaatooyin dhinacay doontaba ha ahaato oo isla markaa ay la nooshahay. waxay kaloo tilmaamaysaa yidhaahdeen xoolo xaaraan ah, qofka hadduu matalan xoolihiisa uu aad u hubin waxay iyadoo ay isticmaalaysa markaa rubama hataa xoolo xaaraan ay ku jirtaa. sababtaani intaasoo mawduucan usoo qaadanaya waxay tahay horesaa idinku sheega walaalayaal, riyada qofka markuu ku riyoodo xaaladda asiga uu ku sugan yahay ayay u turjumaysaa. yacni adigoo lagu qabin iyo hiblaayo kaloo la qabin ayaa hal riyo isla aragteen, halkii riyo haddana labadiina laba nooc ay idin kala turjumaysaa, li'aano xaaladaha labadiina aad ku nooshihiin ayaa kala duwan. marka sidaa darteeda u leeyahay micnooyinka kale ay tilmaamaysaa waxay ka mid tahay arrinta kale waxaa weeye gabadha hadday ku riyooto qofay taqaani iyadoo uur u leh, taana waxay tilmaamaysaa inuu soo socoto bishaaro kheyr ah, waxay ku bishaaraysanayso oo haddana kheyr u ah yacni ku farxi doonto. sidaa hadda hore aan soo sheegay hadday ku riyooto wiilkay xiriirka leeyihiin hadday ku riyooto iyadoo uur u lehna shar ma tilmaamaysa idan, sidoo kale guuleysi waxay tilmaamaysaa najaaxaad badan. marka caalamka fasirka riyooyinka micnooyin kala duwan ayuu arrintan oo kale ku fasiraa, laakiin dhinaca kheyrka iska qaado. haddii aad tahay qof tooba ka fog, qof maxay ahayd rabbi ka fog, rubama ay ku tahay digniin. haddaad tahay qof aan is dhowrin, qof aan is asturin matalan waxyaabahaasoo kale waad fahmi kartaa rubama ay ku tahay digniin oo rabbi ku leeyahay wadadaa qaldan kasoo leexa inuuna shaydaan dhibaato kugu ridin. laakiin micnaheeda kama turjumayso gabar walboo ku riyoota
iyadoo ilmo xaaraan caloosha ku sida riyada dhexdeeda yani inay caadi ahaan tahay gabar xun mise gabar faasiqada mise dhibaatooyinkaas ay la kulmaysa macnahaasaydi ma turjumaysa waxay kaloo noqon kartaa axaadiis nafs haddii dad hadal qaldan ay kaa sheegayaan dad aan arrintaada iyo xogtaada ogeyn inay qalad kaa fahansiin hadday dhacdo kale midaasoo kale welwel ayay kugu abuureysaa riyadaasoo kale laabudda inaad aragtid marka taa mawduucan koowaad halkaan aan kusoo koobay waxaan u gudgalaa mawduuceeni xige mawduuceeni labaad haddaad ku riyootid naagtii ninkaaga kala tageen yacni ninkaagii naagay u qabi jiray gabadhii ay kala tageen oo kale haddaad ku riyootid gabadha lagula qabo oo kale shay dabiici le-ano taa waa lagula qabaa badanaaba labada qofood wax ayaa ka dhexeeyo riibay ku arkaysaa laakiin tii ninka uu furay haddaa riyo ku aragtid taa ahmiyad saas u weyn ma samaynayso rubama hataa ay ka tahay mina shayaadiin le-ano shaydaanka wuxuu rabaa inuu sabir xunba kaa tuso gabadhiiba maaragta markaa riyo aad ku aragtid niid waxaa iska leedahay talow ninkii maxaad gabadhan beryaha la hadlo iidama la soo hadasho yacni niidaad maata waxbaa kusoo dhacay maku sixri rabtaa maxay kaa rabtaa noloshaada may ka xun tahay inaa ninkii isguursatay may ka xun tahay waxaase imaanayso marka badanaa riyadaasoo kale ahmiyad weyn ha siinin rubama gabadhaas la qabaa oo reer iska dhaqanaysa mise hataa haddiina la qabin xiriir kale ay leedahay oo guur kale iyo nolol kale inay dhisatay ka fikiraysaa laga yaabaa marka riyadaasoo kale ahmiyad sidaas u weyn ha siinin badanaa waxay ka ahaanaysaa mina shayaadiin le-ano wuxuu rabaa inuu qalqal iyo cabsi iyo welwel dhexdeena dhigo wallaahu yaclam mawduuceena ugu dambeeyo xoog uguma fofogaanayo inta muhiimadda ayaan kaga hadli doonaa sida qoraalka idinka muuqda gabadha waxay tiri ninkayga wuxuu ku riyooday asi iyo saaxiibkiisa oo maxay ahayd kufsi geysanay wacayaadu billaah mawduuca micnooyin badan ayay tilmaami kartaa waxay tilmaami kartaa lambar 1 xaq islaameed inuu qofka galaayo mise dad labada ninba le-ano qof walba sidaa idin sheegay xaaladda uu ku sugayahay waa muhiim qofka xaaladda uu ku sugayahay ayay riyadiisa u cabiraysaa ay u turjumaysaa laga yaaba xoolo ribo inay jiraan mise xoolo xaaraan ah xoolo xaq dadeey ah wax badan xoolo kelima waxyaabo badan oo xaq aan u lahayn inay iiga samaystaan haddayna arrintaa jirin matalan uu ku riyooday gabar asiga uu aqoonin asoo kufsanaya ninkaaga le-ano qisada ninkaagay ku socotaa rubama asiga xoolo xalaal soo galay midaama xumaan karto marka wallaahu yaclam qof walbii xaaladda uu ku sugaya waa muhiim halkaasaan kusoo koobay